علماء بدن با سدا كستغي معنا عمر بن الخطاب يا عبد الله بن عمر يا ليث بن سعد يا علماء بدن با مري مذهب كاستغى معنا قال امام كحول حدثنا بشير بن محمد ابو محمد السجستاني قال وحول اخبرنا عبد الله بن المبارك قال وحول اخبرنا يونس بن يزيد الايلي عن الزهري قال وحول اخبرنا وحن نور من سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنه ومن نور رمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك يقول إنه ليه إنه يلوي كلكم دمانتين راعوي وزاد وحو كردية الليث حديثك مركو انت كلكم راع وحديثك كلمة دي في هروة انت سدنبا انتو سنينو شيغن بوحو كاني حديثك السنة كلي أوليه سنة كان دنبا حديثك ليه هنا كاهر الزياد لدريه يعني لو أن بحديثك الزهري كوريني زهري لو أن بحديث كوريني زهري حسنة كهرة وحا كوريني يونس بن يزيد سنة كان ضمنا وحا زهري كوريني الليث بن سعد الليث مركا الرواية ديسة وحو قدر القصة أن كتشر رواية يونس ساسي معنا وزاد وحو كردي الليث الليث وحو كردي وورنتي سا حديثك الزهري كوريني وحو سيادي يونس نأوسا قدرين قال يونس وحن لها يعني عبد الله بن مبارك عبد الله بن مبارك با مد هore يونس كوريني مد horena wax qissa akumuna darina xadiiski umbu keenay عبد الله بن مبارك waxa la siman Layth ibn Sa'd oo Yunus xadiiska kowrinay laakiin riwaayadan Layth ziyaada wadatayo qissa aan taa hore ku jirin buu ku daray macna saasaan ula jeeday وزاد wuxuu kordhiyay buu Layth wuxuu kordhiyay قال يونس وحوري كتب وقر واتقفدي ولا ديريه معناه كتب وقر زريق بن حكيم ننكاسا الى ابن شهاب بو سو قري ابن شهاب وزهري بو سو قري وراق او وحو والحال انا انغو حدار يونس اي معه زهري لا جيرنكيسا انا يومئذ مالك اسغا بوادي القرى مش وادي القرى اللي يراهدو انا لا جوغ زهري بو زريق وراق سو قري waata waraaqdii waxa ku yaalay oo wuxuu ku yiri hal tara ma aragta ma ra'yinaysaa ma kula quman tahay an ujammi'a inaan dadka jumcad tujiyo salaad jumca inaan dadka tujiyo ma kula tahay wa zurayqna zurayqa su'aasha soo weydiinaya zurayqun aamil way ala ardin dhulkii dushiibu aamil ka yahay dhulkaas oo yacmaluha uu beerayo macna wax weeyaa uu ka shaqeynay macna wax weey زريقا سؤاشا سو قرياي دول بو جوغا وا دول بيرليا دولكا بيرليدا اددka ka shaqeynay asaga ayaa mas'uulka ah aamilka waxa la yiraahdaa waa ninka meesha mas'uulka ah way macna marka dhulka iyo dadka ka shaqeynaya buu oday u yahay oo mas'uulka yahay macna saasu ka wada wa zurayqna wa ruzayqun zurayq baan irmiya والرزيق رزيقنا عامل مد كشقينه وي عامل مد مسؤول كاوي على ارض دول دشي دول كاسو يعملها ومعناها بيريو وفيها دول كدحدي سنه waxa ahaatay jamaacatun koox oo min Suudaan dadka madmadow ah iyo waqeyrihim qeyrkoodba dadka beerta ka shaqeynay way dad macna waxa way dadka beeraha falo dadka madmadow qaar kamida iyo kuwa kale taba oo jamaaca ah baa meesha joogta oo dhulka beeraha ka shaqeynay والرزيق يومئذ مالك على أيلة مقالة أيلة اللي يلاهدو أيو كيهي قدومية كيه أيلة مركة ومقالة وين أيلة ومقالة وين أو قدومية كأهنين كاللي يلاهدو رزيق ماشان اوچوغي اي دادكاني بيرتا كفاليانا كوحدان اولا بيرتا فاليس ماشي تشوغانا وميل راعسان أيلة راعسان يعني دولكا بيرليده ايله راعسن magaalada eyle la yiraahdo raacsan meel kamid way macna laakiin eyladu waa magaalo weyn oo magaalooyinka waaweyn kamid marka macna taas marka la isma weydiinay ee wuxuu leeyahay meesha marka aan joogo ee dadku beeraha ka falanayaan dadkana aan mas'uulka ka ahay magaalo weyn aan ahayn oo meel iska tuulo iska ah meeshaasi jumcada ma ku ogaayo dadka jumcada ma ku tujiyaa saas macnaha u soo weydiinay طيب والرزيقنا يومئذ مالك إسقى على أيلة ماشا اللي هذا أي معناها مسؤول كيهايو ودوش هذا يهي يعني على أيلة معناه وحويان مسؤول بكيه بمعنى طيب
fakataba wuu qoray ibnu shihaab waraaqdii marka waxay ahayd su-aasheedu ma kula tahay dadka beeralayda ee meesha beeraha falanaya aniguna aan mas-uulka u ahay inaan salaadii aan jumcada tujiyo fakataba wuu qoray ibnu shihaab baa qoray walxaal ana anigu yuunus haddaana asmacu aan maqlayo waraaqa buu u qoro ugu jawaabay ya'muruhu isagoo amraya an yujammica xaalo uu amraya an yujammica inuu yacni jumcada tujiyo dadka yukhbiruhu weliba uu u warramayo yaa u warramaya zuhri yukhbiruhu xaalo uu u warramayo rusayq buu u warramaya wuxuu u sheegay anna saaliman saalim ninka la yidhaahda xadatahu inuu u warramay oo u sheegay xadiis macnaha xadiiska uu u deliishanayo arrinkan uu faray oo salaada jumcada dadka tujida uu u qoray daliilkeedii buu rabaa inuu u daba dhigo saas macnaha ayb yukhbiruhu xaalo uu warramayo yukhbiru zuhri xaal uu warramayo hu rusayq uu warramayo o u sheegayo anna saaliman saalim ibn cabdillaahi bni cumara xadatahu inuu zuhri u warramay oo uu sheegay anna cabdallaahi bni cumara radia allahu canhuma yaquulu inuu leeyahay ama uu yidhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sal lay slam oo yaquulu leh kullukum dhammaantiin raacin weeye marka xadiiskii bilowgiisii waa sanadkii hore unbu xadiisku yani bilowg waa un bilowgii laakiin riwaayada leyth uu yuunus ka warinaya baa qisadan wadata riwaayada laakiin cabdullaahi ibnu mubaarak uu ka warinayo yuunus iyadu qisadan ma wadata macnaha saas weyaan xadiiska laakiin isku mid waaye labada sanadba yaquulu isagoo le baan maqlay rasuulku kullukum dhammaantiin raacin raaci wey kulligiin waa wada raaci baatiin raacigu macnaha waa ruuxa wax loo dirsado ee hawl loo xisaaro wey macnaha kulligiin mas-uul nin walba waa mas-uuloo hawl buu ku maqan yahay wada qowsaar baatiin wa kullukum dhammaantiinna mas-uulun mid la weydiinayo can raciyatihi wixii la raaciyey ee loo diray mas-uuliyaddiisa la saaray ayaa la weydiin doonaa faahfaahin baa laga sadexiyey taasi waa qaacido guud ruuxa ugu yar dadka waa ruuxa afkiisa iyo adimadiisa raaciga ka ah intaa mas-uulka ka ah macnaha inuu ilaaliyo haddii kale ama reer baa hoos yimaada ama dad kaleu mas-uulka ama intaa waa kasii ballaarhaya macnaa mas-uuliyaad kalu hayaa ila aakhiri macnaha saas wey alimaamu imaamkii ninkii madaxweynaha ahaa raacin wey wa mas-uulun mid la weydiinay wey can raciyatihi raciyadiisaa la weydiin inta hoos timaado oo dhan baa loo diray oo mas-uulka yahy maalinta qiyaamadana waa la weydiini raciyadiisii iyo siduu ku maamulay waalrajulu ninkuna raacin raaci weeye fii ahlihi reerkiisa dhexdiisuu raaci ku yahay wa huwa isaguna mas-uulun mid la weydiin waya can raciyatihi raciyadiisaa la weydiinaya ninku reerkiisa waa dadka hoos yimaada isagu uu hayo wey yacni xaaskiisa caruurtiisa dadka ku hoos nool ninku dadkaasuu raaci u yahay raaci ka yahay oo loo diray mashaaric u diray waana la weydiin wixii xumaanay ku kacaan wixii wanaagay ka tagaan waajibaadkay dayacaan xuquuqday lahaayeen kulli baa la warsanaya macnaha waalmar'atu haweenaydu raaciyatun wey fii beyti zawjiha ninkeeda gurigiisay raaciyad ka tahay wa mas-uulatun mid la weydiin waya can raciyatiha wixii ay raacday ee loo dirayna waa la weydiin iyadana yacni guriga ninka way caruurtii yacni guriga ilaalintiisa iyada nafteeda ilaalinteeda ila aakhiri waalkhaadimu midka adeegahaana raacin wey fii mali sayidihi sayidkiisa xoolihiisa dhexdiisu raaci ku yahay wa mas-uulun mid la weydiin waya can raciyatihi raciyadiisaa la weydiinaya yacni khaadimka waxaa laga wadaa waa yani waa addoonkii sayidkaasaa laga fahmaya yacni addoonka sayidkiisa u adeegaayay xoolaha sayidka ee uu khaadimka ka yahay ka shaqeeyo kuwaasaa wax laga weydiino loo diro raaci ka yahy iyaga umaana maalinta qiyamada wax laga weydiin way macnaha ayb qaala wuxuu yidhi qaaladan waxaa iskale ibnu cumar sida ibnu xajar uu rajaxayo qaala ibnu cumar wuxuu yidhi waxasibtu waxaan u malayn buuhi an qad qaala nebigu inuu yidhi waalrajulu ninku raacin wey fii maali abiihi aabbihii xoolihiisa dhexdiisuu raaci ku yahay oo macnaha waxa weye loo diray oo u raacay wa mas-uulun mid la weydiin waya can raciyati raciyadiisaa la weydiin wa kullukum dhammaantiin raacin wey wa mas-uulun mid la weydiin waya can raciyatihi saas macna waalrajulu raacin fii maali abiihi waxa weye waa ninka yacni weli aan madax bannaanaanin oo reer madax bannaan aan yeelanin laakiin aabbihii weli hoos jooga xoolaha marka aabbihii leeyahay ee uu dhex joogo laga yaabo inuu ka dhex shaqeeyo laga yaabo inuusan kaba shaqayninba xoolaha iyaga ilaalintooda iyo dhowridooda ayuu macnaha raaci ka yahay isagana macnaha
وقوسارك الله دري معنا سيدا سويا ولا لويدين محل شاهدك حاجة ويا حديث محل شاهدك وحوي الزهري وحو كدل شنيا كلكم راع كلكم راع من كان وراق ذا أسوأ قرية مركز سؤاش السوي دي مركز كوباد مقالة أيلا ليلة هذا أو عاصمة مقالة وينه بوكية هاي كدومية كيه مقالة أيلا لكن جماعة صلاة الجمعة ما كنت كنا سؤال موسى كسوي ديني حيث تاسي سوي دين بمالي ومقالة وين مرر مالي تاس ويحسوا وح كسوي دي بلك بيرها لقى قطع مقالة الرعصان ميت كميدو مركا وشوغي dadka joogana uu isagu mas'uul u ahaa jumcada ma tujiyaa soo wuxuu ugu jawaabay xadiiskii nabiga kullukum raa'in hayla dadka hadaad mas'uul ka tahay xuquuqdooda inaad ilaaliso wixii diintooda aad ka shaqeyso maslaxa adduunyo maslaxa aakhiraba baa ku saaran masaalixda adduunyo ee inaad kala shaqeyso u baahan waxa ugu weyn salaada inaad tujiso oo salaadiina waxa kamid ah salaada jumcada kamid halkaas marka xadiiska dalishanaya macna saasiyaan marka xil baa ku saaran macna xil baa ku saaran dadka salaada jumcada ku oogo tuji saas macna waa marka meel tuulaa beero oo laga qodanay hadana ma cadalika zuhri xadiiskaas uu dalishaday in salaadii jumca lagu oogay macna walka lagu tukanay sidaas cilmi far badan baa ku tagtay sidaynu horeyba macna u sheegnay in tuulooyinka yani aynan ka baxsanayn awaamirta ku soo aroortay salaada jumcada in la oogo adilada tilmaamaysa inayna tuulooyin ka baxsanayn loo baahan yahay in lagu oogo sax macna tira muayana meesha inay degan yihiin oo 40 ruuxa sida kutubta macna waxa weeye madhabka caanka ku ah tirada iyadii wax daliil ma laha wax daliil oo ku sugan ma uu jiro adilada ku soo aroortayna kulligeed wada daciif waxa la mida madaahibta kale oo midba tira muayana sheegay oo jumcadu ay ku guntamayso ayadana wax daliil saabit ah oo hadana nas ah oo ku soo arooray male kulli waa ijtihaadaad macna kulli waa ijtihaadaad wal asl waxa weeyaan mar hadii aan daliil sugan lahaynin waliba waxa aad uga niqaashay kale Suyuuti kitaabkiisa al-Hawil al-Fatawi ayuu aad uga niqaashay waana wuxuu kamid yahay culimada Shaafiiciyadu kamid wuxuu kitaabka ku isbaatiyay markuu aad u niqaashay oo uu axaadiistii uga hadlay hal xadiis oo sugan inuu san jirin oo ku tusaya 40 bari in 40 ruux in loo baahan yahay oo meesha degan salaada jumca markii lagu oogay macna yani axaadiista kulli inay wada daciif tahay ayuu ku tilmaamay kitaabkiisa isaga macna waana sidaas macna muhaddisiintu ay u sugayaan waa un mas'ala ijtihaada weey laakiin wax daliil amalaha saas macna meesha mar hadii meel la degan yahay ay tahay dadka degan intay dooniba ha dhanaadaan waa in salaadii jumca lagu oogay macna marba hadii la degan yahay saas musaafirka oo sida inoo maandoonto in soo marnay musaafirka baa jumcada laga riday laakiin hadan mar musaafirin ahayn oo la degan yahay waa in la oogay macna ay Soomaalidu taqaanaa ma qana meel ay keeneen malaha yani kutubta fiqiga ee mutaakhiriinta malaha meelahaas laga yaabaa inay ku arkeen qaarkood waxay yiraahdaan hadda mesela dadka qaxootiga kale waxay yiraahdaan wax jumca kuma lahayn oo soo muxuu yahay niyatu rujuuc baan qabnaa kulay niyatu rujuuc 10 sano 20 sano degan niyatu rujuucna way qabaan xasagal waarka waxas waa ajiib wadaada walaaleenayo inta uu ordahayo maarka dadkii jumca lagu tukan ma idinka asixmayso meel walba saas meesha waa la degay goor laga guuri doonana ilaahay baa garanay xaafaskoodii baa u degan ilmahoodii baa u degan yaani waxa weeyaan maartay goorig laga guurahayo goor laga tagayna Allahu a'lam sidaasay magaalo ku tahay waa magaalo dhan oo la degan yahay in hadana la yiraahdo niyatu rujuuc baan qabaa niyatu rujuuc warkeedu ma jiro meesha degtay waa inaad jumcadii la ogaaway macna baabun hal ala man lam yashhad al-jum'ata ghuslun hal ala man iddushi matahay iddaasoo lam yashhad an haadirin al-jum'ata salada jum'ada an soo haadirin ghuslun wax qabaysi ma yahay dushiisa kaasoo min an-nisaa'i haween iyo wasibyaani caruur iyo waqayrihim qayrkooda dadka aan salaada jumcada iimaanaynin qabays ma laga doonayo kuwaasoo haweenka ah caruurta ah ama qayrkooda waxa kamid ah adoonkii oo kale aan soo marnay mamluuga waxa kamid ah musaafirka kuwaasa kamid ah macna dadka ma laga rabaa
يعني إنيسان إيمانين مساجد كي وصلاة جمعة إنن إيمانين حكم كذا إيما إيمانا ينهر الله صشيء لكن قبيس من لقربا هذين إيمانين بمعنى هل على من عد شيء متهي عدة لم يشهد عن حاضر الجمعة غسل قبيس دشي سميه من لقد دونيها ومن النساء والصبيان وغيرهم وقال ابن عمر وحولي إنما الغسل قبيس على من عد شيء بيهات عدة تجيب أي كواجبس عليه دشي سأل الجمعة أي كواجبس وحلقة قادنية الإمام البخاري اختيار كيسو إنو يهي ذاتك عن شمعة إيمانين إنه سنقبيس واجب واحد صوب كوحوي اختيار كيسا انت بروحة لقى فهمها آثارت أسوء أرورينية ترجمة القراشر ترجمة مركو لقو آثارت أكسوء أرورينية وحا لقى فهمها اختيار كيسا مذهب اختيار كمذهب كيسا معنا ساسي مذهب كأمري مركح أثر كاس عبد الله بن عمر وحا لقى قادنا يقول كتوسيا إن عد شمعة إيمانا يسوء بقبيس لقى الربع معناها هذه دمر كي أي إيمانا ين شمعة قبيس بالقربة عرورتي هذا إيمانا ين قبيس بالقربة هذه سنس إيمان إنه قريه ذا سكتش وجاء واحد قبيس كواجب ما يصص معنا قال إمام كحول حدثنا أبو اليمان الحكم النافع قال حول أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حول حدثني سالم بن عبد الله أنه يسوي سمع وحو مقلع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول له سمعت وحن مقلع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له من جاء روحي ماذا ومنكم إذن كمدي الجمعة صلاة الجمعة الروحي ماذا فليغتسلها قبيسته الروحي ماذا مركو ماذا كذب باء مايا مركو إيمان ربوي معنى وصور شيئا من أراد أن يأتي بمعنى من أراد أن يجيء الروحي دون يئنو يماده سوق قبيسته بمعنى حديث كان مركو حقوق بحنايا عدي عن شمعة إيمانين عدي إيماني سوق قبيسته هذه الليل مفهوم كي سوحو كتوسيا عدي عن إيمانين إن القبيس لقربين صاص أدلشان يا معنا قال إمام كحول حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن القعنبي عن مالك بن أنسوي عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار الهلالي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله قال وحولي غسل يوم الجمعة ما ننسى الجمعة قبيس كيدو واجب على كل محتلم متكستوقان قاعدة دشي سو واجب كوية تانا يا بحي عرورتي باب بحضي عرورته إنيسان قبيس واجب كو أهين أيها معناها لقى فهمية وحديث كاس خصوصية صاصي معنا محايا لي قولونا قبيس كو واجب يساوحا لقو قيدي قانقارك كي أن قانقار إنيسان قبيس كو واجب مارك لقى فهمية قال إمام كحول حدثنا مسلم بن إبراهيم قال كحول حدثنا وهيب ابن خالد البصري قال كحول حدثنا ابن طاووس عبد الله وي عن أبيه طاووس بن كيسان اليماني عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري نحن أنه الآخرون كوى الدنبيبان النهي حق إيمان شاه أدونك وما دي كان كدنبين السابقون كوى هرين يانونها يوم القيامة ما ننت قيامة وحكمين يتشنى قلتان كذي أنا أكوه هرين دون أوتوا وحا لسي أمدين قهري الكتاب كتبتي بالسي من قبلنا هرطنا ويهودي نصاري وأوتينا وانا لسي أننا كتابتي من بعد وأوتيناه لي كتاب كيبان لسي بعدهم من بعدهم قداش هذا معنا طاوح على قادنيا كتاب كود هدوه الري كان نقولنا الدنبي كود إنه منسوخي ولا بدلي تصل معنا وتنشيء إنه ممكن ويدو مدحي معها أمان ومعها كتاب كسينتي سين نجاه الري بل وحي كتصيصا لنع كلامك لقى فيريو كتاب كود هدي لقى الدنبي كتاب كودي ولا بدلي حكم كيسي أو كان دنبي أيوه معناها بدلي تصل معنا لقى فاهمين فهذا كني اليوم مال كيوي الذي مال كاسو اختلفوا يسكو خلافين فيه دحديث وما ننتج معنا صمرني فهدانا الله إلهي بأنقوها نونيي فغدا بري لليهود بأسقنات وبعد غد ساب دمنا للنصارى بأسقناتي فسكت مركاسو آموسي نبي صلى الله عليه وسلم ثم كذب وقال وحيري رسولك صلى الله عليه وسلم حق وحا واجبا على كل مسلم كسدوشي سوحا واجب كوا أن يغتسل إنه قبيسته في كل 7 أيام تضوم مع الموت كل قد يوما مال إنه قبيس تضوم مع الموت با مال إنه قبيستا روح مسلم كواجب كوا يغسل حاله بقي فيه مال كدحديسة رأسه مدحيسة وجسده تشلكيس بقية حديث كان صامرنا قيبتي سدنبا مويان
qaybtan dambe marka uu ka daliishanayo xaqun cala kulli muslimin ruux kasta oo muslima toddobadii beriba maalin inuu ka qabaysto waajib bay ku tahay saasuu xadiisku muujinayaa saas macnaha ayib haweenka iyo caruurta iyo dadkaan jumcada imaanaynin qabaysma ku waajibayaba masalada laga hadlaye xadiiska daahirkiisa waxaa ka muuqata ruux kastoo muslim ah ama jumcaha imaanayo ama yuusan imaanine in qabays laga doonayo daahirkiisu waa saas laakiin bukhaari wuxuu wataa daahirkaas waxaa lagu qaydayaa axaadiistiina soo martay oo ahayd mid wuxuu yidhi kii hore cabdullah man jaaa minkum aljumucata kaasaa qaydaya ka kale waxaa qaydaya xadiiskii isagana dambe ee macnaha waxa weeye abu saciido guslu yowmi aljumucati waajibun calaa kulli muxtalim marka wuxuu rabaa inuu ku yidhahdo itlaaqa xadiiskan ku soo arooray ee ku tusayo ruux walba inay jumcadu ku waajibayso muslima itlaaqa loolama jeedee waxa uu laga wadaa ruuxii jumcada imaan raba saas macnaha saas ujeeddadiisi waa ayib wuxuu ina yidhi toddobadii beriba maalin inuu qabaysto ayaa waajib ku ah toddobadaa beri maalinka laga qabaysanayo toddobada beri maalinka uu yahay maalinka la qabaysanayo riwaayadani mayna sheegin laakiin xadiiska jaabir bn cabdillaahi cinda anasaa'i ayaa tilmaamay toddobada beri maalinka laga qabaysanayo inay tahay maalinka jumcada ah saas macnaha oo wuxuu yidhi calaa kulli rajulin muslimin fii kulli 7 ayaamin guslu yowmin wa huwa yowmu ljumucati saasuu yidhi wa huwa yowmu ljumuca yacni toddobada beri maalin in laga qabaysto haddana maalinkaasi waa maalinta jumcada maalin kale maha macnaha saasaa waajiba xadiidkaasi waa xadiis saxiixa ayib rawaahu waxaa wariyey xadiiskan abaan ibnu saalix baa wariyey abaan ibnu saalix waa mucallaq tacliiq waay rawaahu waxaa wariyey xadiidkan abaan ibnu saalix can mujaahid buu ka wariyey mujaahid ibnu jabrin mufasirkii can taawus buu ka wariyey ibnu kaysaan can abi hurayrata qaala wuxu uhi qaala nabiy sal lay sl nebigu wuxuu yihi qaala nabiy sal lay sl nebigu wuxuu yidhi lilaahi ilaahi waxaa u sugnaaday tacaala kor ahaye calaa kulli muslimin muslim kasta dushiisa waxaa ugu sugnaaday xaqun xaq baa ugu sugnaaday an yaktasila inuu qabaysto fii kulli 7 ayaamin toddobadii beriba yowman maalin inuu ka qabaysto toddoba beri oo idilba maalin inuu qabaysto ka mida toddobada ayaa ilaahay ruux kastoo muslima dushiisa ku leeyahay saas macnaha tacliiqan wuxuu meesha u keenay u fiirsada xadiiska hore markuu sheegayey wuxuu yidhi fasakata uma qaala qaaladaasi ma nebigaa yidhi oo xadiiskana xaqun calaa kulli muslimin ma marfuucbaa mise nebigu ma odhanine ruwaadda nin ka mida baa wuxuu wataa fasakata uma qaala oo xadiisku markaa marfuuc noqon maayo wuxuu doonayaa markaas wuxuu qaybtan dambe u keenay inuu muujiyo xadiisku inuu marfuuc yahay tacliiqan uu keenay marka tacliiqa abaan ibnu saalix can mujaahid can taawus can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal lay waslam xadiiskii oo marfuucu marka sanadkan dambe ku keenay wuxuu keliyata ujeeddadiisu ay tahay inuu ku yidhahdo ismoodsiiska laga fahmayo uma qaala hadalkaa inay cid kala wadato rasuulka uusan xadiisku gaadhsiisnayn taasi fahamkaasu ismoodsiiskaasu meesha ka saaraya oo wuxuu rabaa inuu ku yidhahdo xadiisku qaybtiisa dambe waa marfuuco nebigaa la gaadhsiiyey salawatu rabbi wasalaamu calayh saas way macnaa ujeeddadaas u keenay xadiiska waxaa daliishada culimmada ku tagtay qabayska maalinta jumcadu inuu waajib yahay lianna waxaa ku soo arooray xaqun calaa kulli muslimin iyo lilaahi calaa kulli muslimin xaqun waa alfaad wada adag wey waa dilaalo alfaad tusideeda ay wujuubka kutusaysaaye aada u xoog badan yahay wey adiladay daliishadeen bay ka mid tahay waana soo marnay inay daliil ahaan xoog badan tahay qabayska maalinta jumcadu inuu waajib yahay qaala imaamku wuxuu ihi xadaanaa cabdullahi bni muxamed abu jacfar almusnadi qaala wuxuu ihi xadaanaa shabaaba ibnu siwaar alfazari qala wuxuu ihi xadaanaa warqaa ibnu camr almadaini can camr bni dinaar almaki can mujaahid ibni jabrin can ibni cumara radi allahu tacala canhuma can nabiy sal lay waslam qaala nebigu wuxuu yihi idanuu idma linnisaa'i haweenka waxaad u idantaan ood u ogolaataan bileyli habeenkii ila lmasaajidi masaajida u ogolaada
habeenkii masaajidda haweenka u ogolaada waan soo marnay xadiiska wuxuu doonayaa inuu ku yidhaahdo haweenkii qabays ma laga rabaa bay ahayde haddii la yidhi habeenkii masaajidda u ogolaada haweenka maalinkii mafhuumka laga fahmayaay waxa weeye maalinkii in loo diidi karo maalinkii in loo lanna habeen baa lagu qayday sooma habeen baa lagu qayday haddii habeen lagu qayday maalinkii baa baxaya jumcaduna goormay dhacdaa ma habeenaysi maalinimay dhacdaa jumcadii marka haddaynan imaanaynin qabayskeedana inaan looga baahnayn uusan ku waajibaynin buu halkaa ka deliishanaya saas macna halkaasuu ka deliishanaya laakiin waxay culimmadu yidhaahdeen qaarkood yani waxaa ku jira qiyaas alawlaa waxay dhahaan ama mafhuumu lmuwaafaqa waxay culimmada usuulka u yaqaanaan haddii habeenkiiba la yidhi u ogolaada ayadoo fasaadki iyo fitnadu habeenkii badan tahay maalintii waa ka sii xad jirtaa saas macna wa qiyaasu alawlaa walaa taqul lahumaa uffin waalidkaa uf ha ku dhihin haddii lagu yidhi oo afxumaha u geysanin adin iyo gacanqaad ka war soo kama sii xag jiro waa ka sii xag jiraa marka culimada qaarkood saasay yidhaahdeenoo yani waana macno saxa way qolana wayba dabagediyeen macnaha isaga ayib qaala imaamku wuxuu yihi xadaanaa yuusuf ibnu muusa alqaطaan alkuufi qala wuxuu yihi xadaanaa abu usama xamaad ibnu usamat alleyfi qala wuxuu yihi xadaanaa cubaydullahi bni cumar alcumari can naafic mawla bni cumar can ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi kaanat waxayd imra'atun haweeney oo licumaro u sugnaatay xaaskiisay ahayd caatika binti zayd baa la dhihi jiray kaanat waxayd imra'atun oo licumaro cumar u sugnaatay tashhadu mid xaadirtay ahayd salaata subxi salaada subax bay xaadiri jirtay waalcishaai iyo salaada cishaha fi ljamaacati jamaacada dhexeeday xaadiri jirtay fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa faqiila laha markaasaa waxaa lagu yidhi lima takhrujiina maxaad u baxaysaa maxaad u aadaysaa baa masaajidka cidda ku dhahaysa sidai riwaayaad kale xadiiska caddaynaya waa cumar laftiisa isagaa wuxuu ku yidhi waad og tahay bixitaankaaga inaanan jeclaynin maxaad u baxdaa buu ku yidhi saas way macana ama ma ahee waa cabdullaahi ibni cumarka xadiiska warinayo uu cumar dhalay oo cabdullaahi baa wuxuu ku yidhi waad og tahay cumar iyo waxa uu ka qabo bixitaankaaga inuusan jeclaynin nin hiiro badan buu ahaa ee maxaad u baxaysaa buu ku yidhi marka qiila waxaa lagu yidhi faqiila laha waxaa lagu yidhi ama waa cumar ama waa wiilkiisa ibni cumar way macana lima takhrujiina maxaad u baxaysaa walxaad qad taclamiina aad og tahay anna cumara cumar yakrahu inuu nacayo daalika arrinkaa oo wayaqaaru uu ka masayray bixitaankaaga inuu cumar diidan yahay oo karahaysanayo adoog maxaad u baxaysaa baa le cumar radi allahu canhu wuxuu ahaa nin aada u qiiro badan reerkiisa iyo xaaskiisa iyo meel tuhmaa iyo meel malamalaa iyo waxaasoo dhan maaragtay uma yani nin aada uga qiroodu ahaa aada uga macnaa waxa way uga xumaadu ahaan jira macna waa kii nebigu waa inoo iman doonaa nebigu sal alay wasalam habeenkii kor loo sii qaaday sariyadiisii baa waxaan soo arkay buu ihi jannada markii la geeyey haweeney baan arkay haweeneydan yaa iskale cumar baa iskale markaasaan ka cararay buu nebigu sal alay slam meesha ka caray waxaan xusuustay buui kiiradii cumar baan xusuustay bui markaasaan ka caray markaasu cumar meesha fadhiya wuxuu hi nebi alla maadaan kaa qiiroonaya buui macna marka cumar radi allahu canhu nin aada u qiiro badan bu aha kiirada noocaasoo kalena waa loo baahan yahayo ruuxu maxaarimtiisa inuu ilaaliyo oo xumaanta uu ka ilaaliyo oo uu ka qiiroodo waa diin waay macna diin waay mid ayada ayb kiirada la diidan yahay kiira la ogolyahay midda la diidan yahay kiirada la diidan yahay waxa weeyaan tuhmada iyo malaha baatilka inuu ruuxu uun xaaskiisa uun xumaan u maleeyo oo guriga markuu ka baxaba in looga dambeeyey uu maleeyo un oo uu raadku arkaba yidhahdo halkan maxaa maray taasaan la ogoleen taasaan fiicnayn macna ayb qaalad waxay tidhi islaantii cumar waxay tidhi wamaa yamnacuhu maxaa u diidaya cumar an yanhaanii inuu iga reebo hadduu karaahaysanayo inuu ii diido o yidhahdana ma dhaqaaqi kartid maxaa u diidahayt muxuu la aamuusan yahay qaala wuxuu yidhi ibnu cumar yamnacuhu waxaa u diidahaya inuu arrinkaa kaala hadlo qowlu rasuulilahi sal ly sl nebiga odhaahdiisii uu yidhi laa tamnacu ha u diidina imaa allahi ilaahay addoommadiisa masaajidallaahi masaajida ilahi ha u diidina cumar taasuu mari la'yahay waa horuu hadli lahaaye laakiin xadiiskaasaa haya
هو حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم ويرى هوانك وديدنا مساجد كاسا علينا يا معنا تصير مع شاهدكم مركه waxa weeyaan la tamna'u ima Allah masajid Allah haweenki daahirka xadiiska waxa ka muuqda inay masaajidi iimaanayaan bayib masaajidi waxyaalaha loo iimaanayo salaadaha loo iimaanayo jumcadii baa kamid jumcadii ayaa kamid wuxuu ku tusaya marka jumcada inay iimaanayaan jumcada haday iimaanayaanna way soo qabaysanayaan laakiin wuxuu rabaa inuu ku yiraahdo xadiiskani waa mutlaq habeen iyo maalin toona kuma kala qaydin laakiin xadiiskii hore ayaa habeen ku qayday ka qaydayana la raacaya macna mutlaq iyo muqayyid haday soo arooraan yuhmalu al-mutlaq ala al-muqayyid wa qa'idada usuliyada way macna baabu rukhsati rukhsadi baabu yahay illam yahdur hadusan soo xaadirin al-jum'ata jum'adi hadusan soo xaadirin fil matari roobka dhaxdiis illam yahdur ar-rajulu ruuxi salaada jum'ada laga rabay hadusan imaanin jum'adii markuu roob jiro arrinka rukhsadiisa iyo ogolaanshaha shaaricu ogolaaday taas oo macnaha baabu yahay baabu rukhsadi ayuu baabu yahay rukhsadu waa macnaha waa fududayn shay waajib aha oo la fududeeyay taas laga wada illam yahdur hadusan soo xaadirin الجمعة الجمعة دوس صاحبنا في المطر الروب كدحديث قال إمام كوعد حدثنا مسدد وحكوضا حبدي الروب ده أيو شيد كنا روب اللي هي أما الروب كي مركع ديعدي سي سعته جمعة ما لقيت شوقي كرا والروح معناها عذر دار موه ليا إنه الجمعة كباقضه سيدي صلاة الجماعة بقى أنكسهم مرني سوينا صبر صلاة الجماعة حلقة الروب كده أيو إن روح عذر دار وهلي كرا إنه استجباقضه وقولي كنت كذا جمعتنا ما لبد ومسلمت ما هو معنا قال إمام كل حدثنا مسدد ابن مسرهد قال في حدثنا إسماعيل ابن عية قال في أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال في حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين محمد بن سيرين بالمادر هاي قال ابن عباس وحوري عبد الله بن الحارث وحوري وحو شيغي قال إنه يري ابن عباس لمؤذنه مؤذن كيسينك وآدام الشريبة وحكيري في يوم مطير مال روبضا أدعي أيها عبد الله بن عباس وحكيري مؤذن كيسي إذا قلت هدات لهذا أشهد أن محمد رسول الله مركات لهذا وآدام كيه فلا تقلها أرنن حي على الصلاة أرنن قل وحاتر هذا بدل كذا صلوا في بيوتكم وارقريهن كنت كذا صفدبوا فكأن الناس سيدي مركو يالي وآذانك ماشي حي على الصلاة حي على الفلاح لقربي باوحا ومؤذنك كل واقع صلوا في بيوتكم وارقريها كنت كذا فكأن الناس وابأيضوا ضدك استنكروا الرنكاسي يعني قنصدي يعني وي انكرين وي ديدين ضدك بقى ديديو هذا وحي أقوان شرين معه طيب قال وحوري markaas qaala waxa uu yiri marka Abdullah ibn Abbas markuu arkay dadkii arrinkii yaraha diidan oo u arka wax cusub ayaa wuxuu yiri facalahu waxa sameeyay arrinka man cid huwa isaguba khayr badan minni aniga iga khayr badan cidiga khayr badan ba saayeesh waxba indhaha taagtaagina oo ku wada nabiga sallallahu alayhi wasallam ku wada macna saasiya bay wuxuu yiri marka innal jumu'ata badiyahu jum'adu azmatun wa wajib go'an جمعة وواجب قان وإني أنا كريت وحنعي أن أحرجكم إن إذن عجيري قليون إذن لباسك قليون وفتمشوا سعتان في الطين ضوابط الحدادة إيا والدحدي إيا السنبرحدة يعني وحو كوضع جمعة إما شهدوا وواجب قان هذه مركان فرها كقادوا مؤذنك oo yiraahdo hayya ala salaa war salaada u kaalay war liibaanta u kaalay haduu yiraahdo jumcaduna ay waajib tahay inaad soo tagtaan baa laazim noqon lahaydoo dhoobada soo jiidaan soo birsinbirxoodaan dhibaatada soo martaan masaajidka aad timaadaan baa idinku laazim lahay si aanan marka dhibka idin gelinin baan muadinkii kalimadii idin yeereysay baan meesha ka saaray oo ahayd hayya ala salaa hayya ala falah waxaan idin bedelkeeda waxa tiraahdaa guriyiina ku tukada si leedin ogeysiyo guriyaha inaad ku tukataan inay idin banaantahay macna saasi macna waxa weeye hayya ala salaa sideedaba waa kelimada inta kale waa tawxiid laakiin kelimada yeedhida salaada la isugu yeedhayo ay ku jirto waa hayya ala salaa hadii la yiraahdo aadaanka waa in la ajiibo la tago masaajidkii
saas macna masaajidka in la tago waa haddii marka iyadoo roobkii da'ayo dhulkiina dhiiri iyo dhiiqo iyo dhoobaye iyo lusimbirraxaye salaada u kaalayaay masaajidka laydinka dhaho soo inaad soo jiidhaan maaha waxaasoo dhan oo cidhiidhi aad gashaan taasaan marka idiin diidanaa wey saas daraaddeed baan beddelkeedii waxaan idhi salluu fii buyuutikum nabigeena taasi ka sugantaa wey salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas wey macana ina aljumucata jumcadu casmatun waa waajib hadday waajib tahayna haddii la yidhaahdo u imaadda inaad u imaadaan bay noqon ayb wa innii aniguna karihtu waxaan nacay an uxrijakum inaan idin cidhiidhi geliyo oon idinku cidhiidhi geliyo imaanshaha aad imaanaysaan oo ay idin keentay kelimada ah xaya cala asalaa saas macana taa inaan idinku cidhiidhi geliye ayaan nacay buu yidhi oo fatamshuuna marka aad soo socotaan fi diini dhoobada dhexdeeda iyo wadaxadi simbirixada addaxad daxadka waxaa la yidhahdaa lugta kula fakato macnaha simbirixada la dhaha ayb xadiiskaas marka wuxuu kutusayaa imaamku u daliishanayaa roobku markuu da-ayo in yacni jumcana ay tahay bedelkii xaya cala asalaa la dhihi lahaa in la yidhaahdo salluu fii buyuutikum ama asalaatu fi rixaal saan horeba usoo marnay dadkana markaa ay u bannaan tahay inay guryahooda ku tukadaan sida culimmadu jumhuurtoodu qabaanna salaad duhuroo 4 ragcadooduu ruuxu tukan leanna waxa weye khudbadii iyo masaajidkii iyo waa seegay hadday salaaddii jumcadu ku seegto duhur baa la tukanaysay jamaahiirtu oo culimmadu qabaan macnaha marka gurigooday ku tukanayaan dadku haddii roobku da-ayo salaada jumcada mu'adinkuna waa inuu yidhaahdo salluu fii buyuutikum guryihiina ku tukada macnaha roobku marka inuu ka mid yahay macaadiirta cudurdaarada wujuubka jumcada ridda ayuu xadiisku ku tusayaa saas way macnaha waxaana madhabkaa ku tegey culimmada intooda badan jumhuurulculamaa waxay ku tageen roobku inuu ka mid yahay cudurdaarada rida waajibnimada salaada jumcada macnaha saas weyaan baabu min ayna tu'ta aljumucatu wuxuu baab u yahay min ayna xaggeebaa tu'taa looga imaanayaa aljumucatu jumcadii baa looga imaanaya jumcadii xaggee baa looga imaanaya wa calaa man iyo ciddee dushiisay tajibu ku waajibaysa waa laba masalo masaafo intee la-eg baa jumcada looga imaan oo ruuxu masaajidka intee in la-eg hadduu u jiro bay laasim tahay inuu jumcadii yimaado salaaddii jumcada uu ka soo qayb galo midda labaadi waxa weeye yayse waajib ku tahay salaada jumcadu saas macana yay waajib ku tahay waan soo marnay dadkayna waajibka ku ahayn waan soo sheegnay xadiiska ku soo arortay laakiin masaafo intee la-eg baa looga imaanayaa baa u muhiimsan oo meeshan uu kaga hadlaya macnaha liqowli illaahi ilaahay odhahdiisa daraaddeed caza wajalla uu yidhi idaa nuudiya lisalaati salaada haddii loo dhawaaqo min yowmi aljumucati maalinta jumcada fascaw ilaa dikri illahi soomahay xogaa marka aayadda waxaa laga fahmayaa aadaanka maqalkiisu inuu yahay midka dadka keenaya jumcada oo meesha aadaanka laga maqli karo in salaada laga soo aadayo jumcada macnahaasaad moodaa in uu u wato waana taqriiban mafhuum waay taqriiban waa mafhuum kuma cadda aayaddu kuma cadda macnaha isaga ayib wa qaala caطaa'un cadaa wuxuu yidhi idaa kunta haddaad ahaatay fii qaryatin tuulo dhexdeed jaamicatin oo jaamicad ah kulmisay tuulo kulmisay haddii aad joogto oo fa nuudiya loo aadaamo bisalaati salaaddii min yowmi iljumucati maalinta jumcada faxaqun calayka waxaa waajib kuga an tashhadha inaad xaadirto samicta maqashaya annidaa'a aadaanka aw amase lam tasmachu ma aadan maqlina magaalo jaamico ah haddii aad macnaha joogto magaalada jaamicada cabdirasaaq siduu warinayo ibnu jurayj wuxuu yihi waxaa weydiiyey cadaa maxaad ka wadaa magaalada jaamicada alqarya aljaamica maxaad ka wadaa wuxuu yidhi daatu aljamaacati waalamiiri waalqaadi waadduuri almujtamica alaakhidi bacduha bacdan midlu judda wuxuu yidhi waxaan ka wadaa waa magaalada u saaxiibkaa jamaacada dadka waxaa degan amiirna way leedahay nin madaxa wey qaadina way leedahay oo arrimaha yacni laysku qabto loo geeyo guryo isku dhadhow ishayhaystana way leedahay sida magaalada jiddo oo kale buuri waa jiddo waagaas jiddadan macnaha waxa weye sacuudi ku taalla sida jiddo kaleeto wayaan bud macnaha magaaladaasoo kalaan ka wada alqarya aljaamica
magaaladaasoo kale marka haddaad joogto waa inaad salaadii jumcada timaado ama aadaan maqal ama ha maqlin saas macnaha ayib cadaa marka hadalkiisa waxaa laga fahmayaa magaalada weynba hadduu ruuxu joogo oo jumcada lagu oogayo inuu jumcada yimaado inay laazimta ama aadaanka ha maqal ama yuusan maqlin macnaha sidaana waxaa ijmaac ku soo guuriyey alimaamu nawowi imaamu nawowi wuxuu leeyahay magaaladaba haddaad joogto waxaa laisla ogol yahay inaad salaadii jumcada inaad ka qayb gasho ama aadaan meeshaada ha ku soo gaadho ama yuusan ku soo gaadhin taas waa meesheeda macnaha ayib haddayna magaalo weyn ahayn oo magaaladii aadan dhex joogin laakiin waa magaalo iyo deegaamo yaryar oo hareeraheeda ah ama dad baadiye oo ka agdhow laakiin baadiye ahaan ah dadkaasi ilaa xaddee bay ka imaanayaan jamaacada waxay leeyihiin oo culimmadu u badan yihiin aadaanka meel laga maqli karo hadday magaalada u jiraan waa inay yimaadaan meelaan aadaanka laga maqli karin hadday degan yihiinna waajib kuma noqonayso oo waxay u daliishanayaan xadiis ku soo aroortay horta waa daciif abu daawuud iyo xadiis ku soo arooray laakiin waxa loo daliishado waxa ugu fiican xadiiskii salaada jamaacada ku soo arooray ibnu ummu maktuum oo nabigu dhihi jiray atasmacu nidaa aadaanka ma maqashaa haa uu dhihi jiray idan fa ajibu nabigu sallallahu alayhi wasallam marba hadaad aadaanka maqlayso waa inaad ajiibto waa xadiiskaas macnaha loo daliishadaa ayib وكان وحوها أنس رضي الله عنه وحوها أنس وحوها يعني واحد شرط إليه يعني روح إنه يسوي أذانك مقلق شرط ما هي حتى هدو إذا كان في قوة السامع أذانك ميت كم مقلق أو كانت هدو قوة دي سليه والله مثلا دقول كميشات شوقع وحول الحكم يهكي مقلق أو شروط بيقول لك عن علماء السيدة أو شيء مثلا إمام الشافعي أو كانته نيك أذام يوحولي أن يكون صيتا وإنه يهنين عطيه talabaadi waxa weeye meesha iyada cod aswaad kaleeto iyo codadka dhawaqiyo kaleeto waa inayna jirin oo ay haadi tahay saas macna dhawaqiyo kaleeto magaalooyinka waaweyn oo kaleeto ma waa inay haadi tahay sida mesela tuulooyinka iyo baadiyaha oo kaleeto wax dhawaq kale iyo buuq kaleetona waa inuusan jirin talabaadi waxa weeye ruuxuna waa inuu yahay ruux wax maqlaya saddexdaa markii laga helo meesha aadaanka meeshaasoo kale ka dhacay tilmaamaha meesha leh aadaanka ka dhacay inta uu gaari karo ruuxa jooga ruuxaasaa laga rabaa inuu yimaado salaadii jumcada iyo jamaacadaba inuu yimaado macna saas weeyaan yacni magaalooyinkeenna loogama qiyaasan karo magaalooyinkeenna hadda masaajidka dushiisa hadduu ruuxu fuulo oo isagoon mikrofoon ku aadaamaynin uu aadaamo waxaa laga yaabaa xataa waxa weeye guryaha halkan inaan laga maqlinba leanna waxa weeye waxaa ku furan يعني أصوات كليتو كحيوك بدن باكو فران ومقالو تاسمع مرك تال لوغما قياس قادن كرو ميكروفون كان لوغما قياس قادن كرو او ميكروفون كو مجيرين وقت النبي صلى الله عليه وسلم شرعي مركو دغي ميكروفون مجيرين جويغي واغي وشرعadu دغيسay waaqici jiray iyo dadku siday ahaayeen jawigaas oo kala marka miisaanka oo loola laabanaya macna sidaas weeyaan wixii intaas macnaha ka dambeeyay ama siyaado ka ah meesha kuma jiro وكان وحوها أنس رضي الله عنه وحوها في قصره قرقي سدحديسوها في قصره أيوها في قصر وكان أنس رضي الله عنه وحوها في قصره دارتي سدحديسا أحيانا مرمر يجمع مد يعني وحوي صلاة الجمعة كنت كدوها وأحيانا مرمرنا لا يجمع موسى جمعي سنشرين وهو قصر قاسنا بالزاوية ميش الزاوية لردو كيالا على فرسخين لو فرسخ بونا أجرا أي من البصرة بالغوضة مقالة بصرة وعراق كمدا أيوه أجرا لو فرسخ تصل معنا يعني ميل وحوغا يرتولا بو قصرك أنا سكويا لي ماشا سمركة وحويان ميل أجرت لو فرسخ مقالة بصرة ومقالة ويدا أيوه قصرك يدارت أنا سكوتالا ماشا مرنا صلاة دي جمعة ولا إيمان وو جمعيسا oo ka soo aadi marna ma jumcaysanay faruhu ka qaaday Anas ibn Malik saas macna labada farsakh waxa laga wadaa waxa aydan farsikhi wa 3 mil way marka ila 6 mil bay noqonayaan waxay culimadu yiraahdaan yaani culimadu hadda casriga maqaayista casriga waxay yiraahdaan waa farsikhi wa 8 kilomitir bay dhahan marka ila 16 kilomitir bay noqonaysaa ila 16 kilomitir waxa marka laga qaadanaya Anas ibn Malik مسافة انت جرت هذو الروح مقالة أجره
inuu arki jiray inuu khiyaar u leeyahay inuu ka qayb galo salaadii jumcada iyo inuu iskaga joogo saas labadaba inuu khiyaar u leeyahay buu Anas ibn Malik arki jiray markuu masaafada kale u jira macna masaafada inta la eego kale markuu u jiro magaalada weyn قال إمام كحول حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حول حدثنا عبد الله بن وهب المصري قال حول أخبرني عمرو بن الحارث المصري عن عبيد الله بن أبي جعفر الأموي القرشي أن محمد بن جعفر بن الزبير أي حدثه أول الرمي عن عروة بن الزبير بأقوى الرمي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هاي قالت نيتني كان الناس ضدك وحي هاي ينتابون هو كالليتما يوم الجمعة ما ننتج جمعة من منازلهم ديغان مدودا iyo wal awali yani magaalada Madiina awalideeda ay ka soo kaltami jireen yani yantaabuna waxa laga wadaa waa moogeysiga ama kaltanka kolba ka dad taqaanaanba labada ruux oo shayga isu daba mara mid baa haraya jumcadan mid baa tagay kii jumcadan tagay jumcada soo socota wuxuu ku haraya degmadii iyo reerihii buu la sii joogay kii kala imaanayo oo soo tagay kaltan baa leeyahay marka ama moogeysi marka imaanshaha jumcada ayay ku moogeysan jireen oo kolba mid baa imaanaya midna waa baaqanaya macna ayib xagay marka ka imaanayaan waxay ka imaanayaan manaazilihim meelahay deganaayeen wal awali iyo awalida horaan u soo marnay awalidu way kala badbadnayd waa tuulooyin yaryar iyo deegaamo yaryaro magaaladana marka aan ka tirsanayn magaalada qaybaheeda sarana ku yaala way macna horaan u soo marnay oo waati aan soo marnay xadiiskii salaada casarka markii la tukado midkana intuu la tukada nabiga salaada casarka sallallahu alayhi wasallam buu ku laaban jiray gurigiisa awaalida ku yaala wali qoraxdiyo macnaha nool oo nabiga halka ku soo marnay marka awaalida qaarkood waxay u jireen ilaa 4 mayl 4 amyaal qaar 6 amyaal qaar 3 amyaal bay magaalada Madiina u jireen macna halkaas ay marka jumcada ka soo aadi jireen magaalada marka dadka inta u jiro oo kale agagaarkeeda ka agdhow inay jumcada yimaadaan in loo baahan yahay baa laga qaato xadiiskan loo dalishan laakiin inuu laazim ku yahay inay yimaadaan jumcada inay yimaadaan lagama fahmi karo xadiiska sababku muxuu yahay sababtu waxa weeyaan moogeysi baa la sheegay haddii laazim ku yahay inay jumcada yimaadaan inay qaar guryaha ku hadhaan qaarna yimaadaan jumcada soo socotana isbedelaan looma ogolaadeen kulligii wada imaada la dhihla saasmaale kulligii wada imaada la dhihla marka inay jaa'iz tahay oo banaan tahay umba taqriiban laga fahmi karaa xadiiska way macna bay كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون وإيمان شرين في الغبار بورك دحدي سي إيمان شرين يصيبهم حاله أصيبا يا الغبار بورك يا والعرق لدك أصيبا فيخرجوا بحيا منهم حقه فيخرجوا وحا بحيا منهم حقه وحكسوا بحيا العرق لدك باكسوا بحيا فأتى وحاوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحاوي إنسان روح أو منهم أيها كمدا والحال هو النبي عندي أكتد هذا عائشة أنا النبي قال لك شوغا بانين ميلها صرصرة مقالة التولوين كاكاك لو كسو تغي عوالي دا كيمي oo soo dhididay waxoogaa boodna soo yara fuulay socodku soo socday baa nabiga la soo fadhiistay tir salaatu rabbi wa salaamu alayhi faqala nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri nabigu law annakum idinku tadahhartum hadda tahara qaadan lahaydeen li yawmikum maalinkina hada ay kana ay lakana hasanahu wa fi'na allah nabi sallallahu alayhi wasallam waxoogaa yani ninkan dhididay boodkuna ku yaalay laga yaabo cid uu la fadhiistay waxoogaa inay yara kara haysato ruux dhididay taasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam marka wuxuu leeyahay hadaad u soo qabaysan lahaydeen maalinka jumcada imaanshaheeda baa fiicnaan lahayd buu rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam saas macna marka inay meel yara sare ka imaan jireen oo awaali Madiina ay salaada jumcada imaan jireen laakiin ay ku moogeysan jireen oo wada imaan jireen buu xadiisku muujinaya macna baabu waqtul jumu'ati idha zalat ash-shamsu waqtul jumu'ati jumcada waqtigeedu idha goorti way zalat ay zuusha ash-shamsu qurra marka waynu soo sheegnay masalada hore haddii magaalo ay tahay oo magaalada aad wax ka degan tahay magaaladu haba weynaatee salaad ama aadaan maqal ama ha maqaline waa inaad timaado salaadii jumcada ka soo qayb gasho haddii laakiin ay tuulo iyo magaalo tuulooyin ka baxsan iyo baadiye ay tahay markaasi ruux aadaan maqlaya mooyaane laazim ku noqon mayso imaansho way macna sidaasay u kala qaadaan baabun hada kana baabu way waqtul jumu'ati jumcada waqtigeedu إذا قرتي ويزالت أي زوشة الشمس فرحت مركز زوشة وقت الجمعة وقرمة الجمعة قرمة لا تكن
imaamku mas'aladan wuu kala fiiqay muusan ayagoo duuduuban ka tegine go-aan buu ka gaadhay oo wuxuu ku yidhi jumcada waktigeedu waa qoraxdu markay zuusho sida duhurka oo kale way macna masaladana waa masale khilaafiya waa la og yahay masale isku khilaafsan yahay wuxuu u jasmiyey waxaa daciif la noqdoo la tabardaraaday adilada ay daliishanayaan qolyaha yidhi zawaalka ka hor baa jumcada la dukan karaa qolada adiladooda la tabardaraatay sidaa daraaddeed buu masalada u kala fiiqay macna wakadalika sidaasoo kale oo jumcada waktigeeda inay qoraxdu markay zuusho ay tahay kadib kadalika sidaasoo kalea yurwaa waxaa laga wariyaa can cumara cumar baa laga wariyaa wa caliyin cali baa laga wariyaa wanucmaan ibnu bashiir baa laga wariyaa wa camr ibnu xurays baa laga wariyaa radia allahu canhu saxaabadaasoo dhan baa laga wariyaa inay tahay jumcada waktigeedu bacda zawaal qaala imaamku wuxu uhi xadaana cabdaan cabdullahi ibnu cusmaan alsdi almarwazi qala wuxu uhi akhbarana cabdullah ibnu mubaarak wey almarwazi qala wuxuu uhi akhbarana yaxya ibnu saciid alansaari wey annahu isagu samica inuu maqlay camrata sa'alade annahu isagu sa'ala wuu weydiiyey camrata ayuu weydiiyey camrata binta cabdiraxmaan alansaariya tilmiidatu caaisha wey annahu sa'ala wuxuu weydiiyey camrata can ilgusli qabayska yowma aljumucati maalinta jumcada la qabaysa faqaalat waxay tidhi qaalat caaishatu radi allahu canha caaisha waxay tidhi kaana annaasu dadku waxay ahaayeen mahanata anfusihim nafafyaalkooda kuwo u adeegay ahaayeen nafafyaalkooda kuwo u adeegay ahaayeen waxay ka wadaa dadku shaqaalo ma lahayn iyagaa shaqaysan jire nin walba isagaa shaqadiisa qabsan jiray dad u adeega mayna lahaan jirin macna kaana annaasu dadku waxayan mahanata anfusihim nafafyaalkooda kuwo u adeegay ahaan jireen wa kaanuu waxayna ahaayeen idaa raaxuu hadday caraabaan ila jumucati jumcada hadday usoo caraabaan raaxuu kuwo usoo caraaba fii hay-atihim sidoodaa iyo qaabkoodaasay ugu soo caraabi jireen yani qaabkooda waxay ka wadaa qaabkii ay shaqada ku hayeen dhididkii shaqada ku qabtay iyo dharkii ay shaqada ku qabeen hay-adoodii iyagoon iska bedelin bay jumcada soo aadi jireen saas macna calaa hay-ati fii hay-atihim bay ku soo aadi jireen faqiila waxaa lagu yidhi lahum iyaga low iktasaltum haddaad qabaysan lahaydeen yani haddaad qabaysan lahaydeen way ficnaan lahayd haddii lowda shardiya laga dhigo ayb maxalushaahidka xadiiska halkan uu ka daliishanayo imaam albukhaari oo uu u daliishanayo waktiga salaada jumcadu inuu yahay zawaalka kadib waxa weeye waa lafdiga ah kaanuu idaa raaxuu kelimatu rawaax luqawiyiintu waxay u badan yihiin waxaa loo isticmaalaa socodka dhaca zawaalka kadib qoraxdu markay zuusha kadib socodka dhaca waxaa la yidhaahdaa alrawaax ayb laakiin waxaynu soo marnay in loo isticmaali karo socodka dhaca niska horena sumayna soo marin waxaan ku soo marnay xadiiskii yani ka hadlayey jumcada u kallihiddeeda fadiiladeeda waxaana darsigeennii kan ku xigay miyuu ku jiray halkaasaan ku soo marnay kelimatu raaxa niska hore socdaalka dhacana waa loo adeegsadaa niska dambena waa loo adeegsadaa laakiin waxay u badan tahay in loo adeegsado socodka dhaca niska dambe bukhaari marka wuxuu wataa wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo socodkii jimcada loo soo socday baa waxaa laga dhigay waxaa loo isticmaalay kelimadii loo isticmaali jiray socodka niska dambe dhaca inay marka imaan jireen zawaalka kadib ayaa laga qaadanayaa lafdiga idaa raaxu saas macna ayb qaala imaamku wuxuu uhi xadaana surayj ibnu nucmaan albaqdaadi qala wuxuu uhi xadaana fulayx ibnu sulaymaan alkhuzaaci wey can cusmaan bni cabdiraxmaan ibni cusmaan itaymiyi can anas ibni malikin radi allahu canhu ana nabiya sal ly sl nebigu kaana wuxua yusallii mid tukada aljumucata jumcada wuxuu tukan jiray xiina goorta tamiilu ay iilato ashamsu qoraxdu markay iilato markay qoraxdu samada kala barhkeeda ka iilato ka leexato oo xagga gabalowdhac u leexato ayuu nebigu tukan jiray salaada jumcada macna ayb qaala imaamku wuxuu ihi xadaana cabdaan cabdullahi bni cusmaan qala wuxu uhi akhbarana cabdullah ibn mubaarak wey qala wuxu uhi akhbarana xumay ibn abi xumaydin aطawiil can anasin qaala anas wuxuu ihi kunaa waxaan nubakiru kuwa yani u degdega biljumucati jumcada wanaqiilu waanu qayluusan jirnay bacda aljumucati jumcada gadaasheedana waanu qayluushan jirnay qayluushi macnaha waa seexashada maalinkii la seexdo yaa la yidhahdaa yani naqiilu alqayluula la yidhahda macnaheedu waxa weeye xadiiska hore
أنس وحكو عدي هاي صلاة الجمعة إني دعي شرتي حين الزوال مركي قرحدو إيلتو كم دنبنا وحكو تسيا إني أمن هوري صلاة الجمعة أي آدي شرين كنا نبكر بالجمعة بخاري مركو وحو روائنه كله تبكير كان كتشر حديث كان دنبئ أنس معنى هذا وحا لقوضا waxay u degdeg jireen waqtiga jumcada waqtiga ugu horeeyay ka tukan jireen saas baa laga wadaa uu lagama wado qorraxdan zuulin baan tukan jirnay lagama wade riwaayada hore fasirayso wuxuu laga wadaa waqtiga jumcada waqtigeedu markuu galo waqtiga awalkiisan ka tukan jirnay saas macna tabkiirka marka macnaha in laga wado ayuu Bukhari wataa almuhim mas'aladu yaani culimadu say u badan yihiin jamaahiirtoodu say qabaan way مذهب كإمام البخاري وهذا الرجحيه صلاة الجمعة إنه وقت جاده هي صلاة الظهر كوقت جاده أو ورحد مركز الزوجة كذب لتكلم معنا سيدا معناه وسيدا لا بدين لكن رواية عن الإمام أحمد علماء السلف كقار كمل واحد كتجن إن لتكنكروا ورحد أنت يزنزولنا قبل الزوال إن لتكنكروا معنا وأنا صامر لي الدليل ده قار كمل واحد كمل حديث في شنطة ساعة كدجي إن صامر لي حديث كاسا كمل waxaa ka mid ah axaadiis ku tusaysa in markay salaada jumcada ka baxaan xaydaanka iyo darbiyaduba aysan hoos lahayn waxaa laga qaadanaya marka jumcadii yani waxa weeyaan masalan khudbadii salaadii intaasoo dhan intii lagu jiray haddana markii laga baxay darbiyadii hoos male in zawaalka laga hormarin jiray baa laga qaadan baa marka adigu nusuus noocaas oo kaleetana waa jirtaa علماء قار كميدنا وكتجن لكن جماهيرته waxay qabaan inay waqtiga duhurka isku mid yihiin macna baabun ida ishtadda hadu darado al harr kuleylku hadu darado yawm al jumu'ati maalinta jumcada waxaynu soo marnay maalinta jumcadu hadu kuleylku maalinta yaani duhurka hadu kuleylku daran yahay in salaada waxoogaa dib loo yara dhigayo sooma jumcadii ma lamid baa mise lamid ma aha taas waa inuu ku daa قال ابن كثير حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال وحوري حدثنا حرمي بن عمارة قال وحوري حدثنا أبو خلدة هو أبو خلدة هذه خالد بن دينار وهي مجعسوي الخياط قال وحوري فتوحا المغلي أنس بن مالك ويقول له كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اشتد هدود البرد قبوه بكر مد معناها وقت هراء أذوها بالصلاة صلاة بكر مد صلاة كذا أي بكر مد الدكية أيها بكر مد دجيه ايوها بالصلاه صلاه دجنجر وقتك اول كيسو كتكنجر معنا وتصمر نبكر بالجمعه وقتك اول كيسو لغا تكدا لغا ودا واذا اشتد هدو دراد الحر قبوغ كليلكو هدو درادنا ابرد وقبوجنجر بالصلاه صلاه قبوجنجر دب و ير دغي جيره خوغا انت كليل كنكو جبايو يعني وحو كودا صلاه الجمعه بو كودا طيب يعني دا ياوت تابعي قال لغا يابا inuu wato Abu Khalda ama ay wataan ragga taabiiciga ka wasi hooseeyaba salaadan yaa waxay ka dhigeen la qaboojinayo kulku markuu daran yahay baa waxay ku fasireen inay tahay salaada jumcada tafsiirkaasi hadduu marka xadiis marfuuca ahaan lahaa imaam al-Bukhari mas'alada wuu jismin lahaa laakiin tafsiirkan salaada la qaboojinayo jumca inay tahay lagu fasirayo هذا النبي أنا هاي صلوات ربي وسلامه عليه وهذا التابعي وتوي معنا التابعي كفهمي أو فهمي صلاة إني صلاة الجمعة وأنا في الدنيا معنا وحويان وحكو شراء طيب قال يونس بن بكير وحوري أخبرنا وحى الله ورمي أبو خلدة الله ورمي فقال وحوري بالصلاة ولم يذكر من أوسن شيء الجمعة الجمعة موسن شيء waxa la isku hayaa salaadani ma salaad ba waxa la qaboojinayo xadiiska salaad ba ku soo mise jumca meesha ku jirta waa arrinka la isku hayo xadiiska hore aakhirkiisa yaani aljumca kam dambe wuxuu yiri Yunus ibn Bukayr xadiiska markuu warinay Abu Khalda anaga xadiiska noo sheegay laakiin wax jumca la yiraahdo ma sheegin wuxuu marka yiri salaad طيب وقال marka ujeedadiisu waxa weey uu taa hadda u keenay jumcadu
صلاة الجمعة إن لقبوتشيو وحنس أو كسو أروري متشرو لكن وحو النسك كسو أروري لقبوتشين هذا قرحة كل شو دب لو يردقي وصلاة الظهر كا أنا سمرك وحو وتا صلاة الظهر كهدي لهلا قبوتشيلي لكلكم مركو الدنيا صلاة الجمعة والله مدو بقياس قادنا لكن نص ما هيو صافي معنا نص ما هيو هدو نص هيو وشيق لها رجن كذا مرينا أيقنا حديث كالصلاة هلا قبوتشيو بيتفهمين إن الجمعة كم تهيه أيقنا ما هي النص عط أو نهيه جمعة أيضنا قرحة هذي كلوشة هلا قبوتشيو دبها الله يرديه أيضنا النص ما هي غاية ما في الأمر وحوي مسألة وقياس بمعنى الظهر كذا وقياس قادنيا رجل شمعة ضبط جينا شمعة حديث مرفوعكم مجلس شمعة حديث كمرفوعكم مجلس تصاص معنا وقال بشر بن ثابت وحيري حدثنا وحى نور رمي أبو خلدة نور رمي أبو خلدة أي نور رمي قال وحيري صلى بنا وحى نتشي أمير با الجمعة شمعة نتشي من مرحة وصلاة الجمعة نتشي ثم مركز قال وحيري ننكي مرحبا لأنس وحكوري رضي الله عنه كيف سداب كارها النبي صلى الله عليه وسلم يسلم يدت كذا الظهر كسداب النبي قلت كان شري وكوضع صلاة الجمعة أبا لقى بحي صلاة الجمعة ننكي تدك تجيه وأمير كأها با أنا صوميش تشوغي با وحي ويديني سابوا النبي صلاة الظهر كأوتو كان شري معناه دوحة وهي صلاة اللي لقى بحينا الجمعة يعني ظهر كي إيا الجمعة دي إني اسكو حكم يهين أيوه مركا أدليشان ما دام الظهر يضو لقى بحي صلاة وحد الله يضو الجمعة لقى بحي haddana salaad duhur xukunkeed uu weydiiyey isagoo qasadkiisu ay tahay salaadii jumcee la tukaday jumcidii duhurku inay isku mid yihiin buu marka u daliishanaya macna oo saas salaadii jumcee anasna muusan kala hadlin oo ma horanin war jumcaynu tukanay salaad duhur maxaa ka galay duhurka qaabku nabigu u tukan jiray waa meesheeda laakiin salaad jumcaa baynu tukanay waxaad ii weydiisaa qaabkeedu nabigu salaadii jumcada u tukaday ana saa kuma dhihin markuu yiri duurka seebu uu tukan jiray salaadii la tukadayna ay jumca ahayd inay isku mid yihiin buu marka ana taqriiriyay saas macna ana sidaas u sugay inay wax farqiya ayna u dhaxaynin intaas hadda meesha uu keenayo macna marka waxooga yaani ragaas hadda la sheego dhan waxay wataan salaada jumcada in la qaboojinayo laakiin axaadiista salaada jumcada ku soo aroortay inuu qiyaaska la isticmaali mooyaane waxay itlaaqday in waqtiga ugu horeeya laga tukanayo wax qaboojina kuma soo aroorin salaada jumcada allahumma in la yiraahdo duhurka in looga qiyaas qaato mooyaan macna wala macquul in duhurka looga qiyaas qaato hadii la yiraahdo waa duhur la gaabiyeyna waa fuqahaada qaarkood say qabaan waa duhur iyo siyaado hadii la yiraahdana waa un isla meeshii marka in la qaboojiyo cilada keenaysana duhurka ciladii loo qaboojinayna meesha waa ku jirtaa macna sidaas weeyaan baabul mashi socodkii baabiya ila aljumcati jumcada loo socdo jumcada in loo socdo ayuu baabiya باب المشي إلى الجمعة وقول الله إله ولهدي سجل ذكره ويري فاسعوا صعدا إلى ذكر الله هذا والروائن في هذا شو معنا برك الله في صعده لما تدقدقوا إن الأرض الله والربا آيات القرآن كوث فصير الربا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وحور الروائن ماشا كساره فهم ذاتك قاركي لغايا وإني فهمانو فاسعود إني كفهمان أرضع أرض سكيداي إني كفهمان حيالي السعيقة بمعنى الجري والله استعماله أو أرضك السعيقة وحك الله استعماله بمعنى العمل قبشو شيء قبها دي بمعنى السعيقة الله استعماله لحادثك الله استعماله يعني وحيا ربنا الله استعماله مركز السعيقة الآيات كسا أروري أرض مئه فاسعوا آذا أو تقوي معنا صاصويا آذا أو تقع صاصا لقونا معناها سورة ما يفسره وقول الله إله أولاد جل ذكره يريب بابويا فاسعوا إلى ذكر الله ومن قال عدي تري السعي العمل أيو بابويا حكى له بابويا ومن عد قال تري علماء كم ذا السعي سعي معنيه سوحوي العمل وقبشنا شيء قال قبتي الشقدة والذهاب يآدتان صاصا لقولا علماء ساقوا فسرتين باب وياه لقول الله إله وله سدرات يا دليل
إن كلمة السعي أي كتبت بمعنى العمل والذهاب وحا دليل قول الله تعالى وسعى لها سعيها ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها صماهن ننكي آخرة دونية أو أرضمية مرقع أو أرضمها وسعى لها سعيها عمل كي لغم مضلهانا شقيستو لي ما دوي معنا سعيق بمعنى العمل إنه كي ما دو أيه مركا آيادا لكتصيسا ساسو معناها قوة. طيب وقال ابن عباس وحول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يحرم وحا حرام البيع إيب كيبا حرام حينئذ مركا الله مركي صلاة لو آدامه إيب كوا حرام وآذانك وآذانك يعني أدي مساجك لبا آذان لغا آدامه وآذانك وحا لغا ودا وقتك النبي آذانك يتشيري تشيريو إمامكم مركو منبر كفولو آذانك لآدامه معنا لأن مركي القرآن كدقي ينولش النبي صلى الله عليه وسلم منا مجرين لبا آذان شبعض ملاهين بل وقتك عمر وقتك أبو بكر منا لبا آذان مجرين وقتك عثمان أو ضدكو باتين با آذانك لبعض عثمان شديي صاص معنا ضدكو باتي درادد بنا أتشديي طلبات آذانك عثمان إلا بعد وحا لقى آدام مجرين مساجك لقى آدام مجرين guri suuqa dhexdiisa ku yaala daar halkaas intuu dul fuulo muadinku ayuu aadaami jiray oo macna halka ka adimi jiray saas macna marka Uthman baa siyaadiyay Uthmanna wuxuu u siyaadiyay aadaankii masaajidka ka dhacayay bayna dadka maadaama la batay wayna maqlaynin saadaradeed buu u siyaadiyay sida daradeed baa waxa sax ah ciladii uu jideeyay Uthman hadii ay meeshii ka baxdo oo dadkuba aadaankii masaajidka ka baxayay ay maqlayaan الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما فصل معنا وحد آذانكي كوبات يعني وحويان شدينتي سي عثمان قاف وشديي صوكي وشديينا ماشا ميالو مرة دوسا ماشا أولينا صوكي ماشا كبحينا معنا وحوي أسل كيسيبو كنا قول يواصيدو أها وقتك النبي صلى الله عليه وسلم يا وقتك عمر يا وقتك معناها أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما لها مثلا الميكروفون نضل هاي نوكلته tuulooyinka kale oo dad badan ay joogan masaajidina mikrofoonada codkoodana aan la maqlaynin meelaha soo kaleetay ciladii qaa'im tahay taas macna laakiin meelaha magaalooyinka waaweyn ee mikrofoonada la maqlayay ciladii waa zushay sababkii keenay Uthman inuu u jideeyo yani marka la yani wax weey la jamciyo way aasaarta ku soo arootay yani jideynta aadaanka u jideeyo Uthman macna saas weeyaan bay marka aadaankaas minbarka markuu imaamku fuula aadaanka la adimayo markuu dhaco bay'a iyo wax kale iibsigu waa xaraan sida jumhuur culimada ku tagay culimadu intooda badan baa ku tagay waana sida saxiixa qala wuxuu qala afa wuxuu tahrumu wa qala afa wuxuu tahrumu wa haram as-sinaa'atu wa samaynti kulluha dhammaanteed as-sinaa'at wa farsamada gacanta laga qabto dharka toolitaankiisi mesela waxa way maartay hawlaha yani gacanta laga qabto iibsiga kaliya ma wax kasto salaada lagaga mashquulayo oo hawla adduunyo ah baan markaa ogolayno waxa masaajidka la soo aadayo macna sidaas weeyaan waqala ibrahim ibn sa'd wuxuu yiri an az-zuhri isagoo ka warinaya ida adana hadu aadama al-mu'adhdhin yawm al-jum'ati wal hal huwa isagu ruuxaasi musaafir oo musaafir yahay fa alayhi waxa dushiisa an yashhada inuu jumcada xaadir hadii la aadamo aadaankii aad maqasho adoo socota waa inaad xaadirto salaadii jumcada yaa oranaya الزهري باساسي زهري هذا الكعلماء انت وضبنا وكو خلافين او waxay qaban ruuxa musaafirka aadaanka ama maqal ama yusalmadine wax jumca inay ku waajibeen waana soo marnay xadiis saxiix oo macnaha ku tusay waan soo tilmaanayo nabigu inuu yiri wax jumca musaafirka lagu malaha taas macna waxa laga yaabaa inuu zuhri ujeedadiisu ay tahay adigoo magaaladii jooga socotana ah laakiin marka aan socdaal ku jirin hadii masaajidii laga aadaamo ساجدي لغا آدم آدانكينا آد مقشو جمعة تك إلا المركز صعدكم ما ترتدي سيدا إن الزهري وتواصل تقل ومعنوه سيداسيا قال إمام كحوري حدثنا علي بن عبد الله قال كحوري حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي قال كحوري حدثنا يزيد بن أبي مريم قال كحوري حدثنا عبابة بن الرفاعة بن رافع الأنصاري قال كحوري أدركني وحا إسوق قاري أبو عبس عبد الرحمن بن جبير بالإدارة أبو عبس ما إسوق قاري والحال أنا أذهب أنو سعده أنو آذي إلى الجمعة الجمعة أنو أسي سعده أيو يقدم يمي فقال وحولي سمعت وحى المغلي النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول له من اغبرت نكي أي بودودو
qadamaahu labadiisa lugood fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa ay ku boodhoobaan macnaha daacada ilahay baa laga wadaaya xaramahu llahu ilaahay wuxuu ka xarimayaa ninka cala annaari naarta dusheeda sidaas nebigu walaal maqlay xaggeen ka deliishanaya xadiiskan laba meeloodba waa laga deliishay waa midda koobaade waxaa isoo gaadhay buu ihi abu cabsin anoo jumcada usii socdo nin ordahaya lama soo gaadho nin ordahaya lama soo gaadho haddii jumcada loo ordi karo oo ruuxa macnaha fascaw ay macnaheedu tahay hala ordo oo hala yaaco hadday macnaheedu tahay ninka la yidhaahdo abu cabsin na markaa uu ordayo ma soo gaadheen ninkan ka daba yimid taa macnaheedu waxay kutusaysaa inuu tartiib u socday macnaha aayaddu inuu yahay socod aadana halkaasay macnaha ku cadda oo macnaha saasay isu waafaqayaan halkan waa laga fahmay ta labaadi waxa weeye markuu ilaah yidhi man ikhbarad qadamaahu fii sabiili markuu nebigu yuri sal lay slam man ikhbarad qadamaahu fii sabiili illah labadiisa lugood ninkay jidka ilahay dhexdiisa ku boodhowdo oo daacada ilaahay isagoo u socda ay boodhoobaan ama jihaad buu u socdaa ama salaad buu u socdaa boodhoobidaasi jihaadkao kalea asal hadda u yahay markuu ruuxu jihaadayo oo gacmihii lugihiisu boodhoobayaan macnaheedu inuu ordayo un ma aha macnaheedu inuu ordahayo un ma aha isagoo tartiib u socday boodhoobahayaan isagoo macnaha waxa weye dagaalamaya boodhooba isagoon dagaal ku jirin bay boodhoobayan isagoo fadhiya boodhoobayan saas way macnaha marka halkaana waa laga qaadan oo iyadana macnaha waxa waa laga fahmaya macnaha qaala imaamku wuxu uhi xadaana xadiidka asirkiisu wuxuu ku imaan doona fi kitaabi aljihaad laakiin hadda fii sabiili illahidaasu wuxuu wataa macnaheedu inuu yahay fii daacati illah daaco ilaahay oo dhanna waxaa soo gelaysa markaa idlaaqeeda waxaa soo gelaya salaadii jumcadaa soo gelaysa macnaha qaala imaamku wuxu uhi xadaana aadam ibn abi iyaas qaala wuxu uhi xadaana ibnu abi di'bin moxamed ibn cabdiraxmaan ibn abi di'bin qaala wuxu uhi qaala zuhriy wuxuu ihi can saciidin ibn musayab wey wa abi salamata can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal lay waslam buu ka warin waxadaanaa waa sanad kale oo xadiisku leey waxadaanaa waxaa noo warramay bukhaari abulyamaan qaala wuxuu ihi akhbaranaa shucayb can izuhriy qala wuxu ihi akhbaranii waxaa ii warramay abu salamata bn cabdiraxmaan ana abaa hurayrata qaala inuu li samictu waxaan maqlay rasul lah sal lay slam oo yaquulu leh idaa uqiimat isalaatu waa labadaa sanada xadiiska ale xadiiskan idaa uqiimat haddii la aqimo asalaatu salaadii haddii la aqimo falaa ta'tuuha ha imaanina tascawna xaalo aad yaacaysaan oo ordaysaan idinkoo degdegaya ha imaanina waatuuha imaada tamshuuna idinkoo socda calaykum laazima asakiinata xasilooni famaa adragtum waxaad soo haleeshaanoo imaamka ka soo gaadhaan fasalluu la tukada wamaa faatakum wixii idinka tago idin dhaafana fa atimuu dib ka dhammaystirta waan soo marnay xadiiska maxalushaahidkiisu waxa weeye idaa uqiimat isalaatu falaa ta'tuuha tascawna salaadoo dhan baa soo gelaysa oy ka mid tahay salaadii jumcadu inaan orod loo baahnayn buu marka meesha yani waxa wey xadiisku muujinaya qaala imaamku wuxu uhi xadaanaa camr bnu caliyin alfallaas qaala wuxuu uhi xadaanii abu qutayba muslim ibnu qutayba alqushayri baa la yidhahda qala wuxu uhi xadaanaa caliy bnu mubaarak alhunaadi can yaxya bni abi kaiir aلطaa'i can cabdillahi bni abi qataada alansaari laa aclamuhu ma ogi buu yihi yaa odhanaya yaxya bni abi kaiir laa aclamu ma ogi hu cabdullaahi ilaa can abiihi ilaa raawiyan inuu yahay xadiiska mid warinaya can abiihi aabbihi ka warinaya mooyaane yacni aabbihii inuu xadiiskan ka warinayo mooye wax kale ma ogi wey macana aabbihi buu ka warinaya buu ka wada can inabi sal lay slam nebiguu ka warinaya aabihiina aabihi waa abu qataada alxaaris ibnu ribciyin alansaari can inabi sal lay sl nebiguu ka warinaya qaala wuxu uhi nebigu laa taquumu ha istaagina xataa tarawnii ilaa aad i aragtaan salaadda ha isu taagina wey macana ilaa aad i aragtaan wa calaykum laazima asakiinata xasilooni laazima calaykum asakiina xasilooni halkaa way meesha laga daliishanayo calaykum asakiina jumcadii haddaad usoo socotaan ood imaanaysaan iyo haddaad isu taagaysaan intaba calaykum asakiina xasilooni laazima oo orodka iyo yaacitaanka daaya wey macnaa iyo degdega saas halkaasaa laga qaadanaya macnaha marka axaadiistan oo dhan wuxuu u keenayaa inuu kuu fasiro un aayadda qur-aanka fascaw ilaa dikri illaahidu inayna orod laga wadin ee ay tahay soo dadaalo oo soo aada intaad soo tabaabushaysataan oo mar hore soo diyaargarowdaan soo aada macnahaasaa laga wada hada wabilahi towfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala alihi wsaxbi waslm alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala alihi waصaxbihi ajmaciin ama bacd qala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala baabun laa yufariqu bayna اtnayni yowma اljumuca
وهو باب يهي لا يفرق مكة الجينيو روحي صوق لمساجدك بين اثنين لو دحدود كلا جين ما لو الروح دحدود يوم الجمعة ما ننت الجمعة معناها ما ننت الجمعة مركم مساجد صوق له لو الروح اسقر فرديا انتو دحدود قالوا مكة الدركين يوم مكة الجينيو معناها ساسويا قال إمام كحول حدثنا عبد الله بن عثمان المروزي قال حول أخبرنا عبد الله بن المبارك المروزي قال حول أخبرنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن سعيد المقبوري عن أبيه إسماعيل وحل هذا أبو سعيد بن أبي سعيد أبي مجعيس كيسان برنا عن أبيه وحكورنا يا أبو كيسان المقبوري عن ابن وديعة وحكورنا يا عبد الله بن الوديعة عن سلمان الفارسي قال إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوح يري من اغتسل الروح قبيس يوم الجمعة ما ننت الجمعة وتطهر طهارقات بما استطاع وحو أوضع من ظهر طهارقات شاء يعني سندي فنتي والوحي الإرادة ومعنى صمر ثم كدبنا الدهن سبكذا أما سريديسته أو أما سمسطات من ديب عبركي وحيالها دودقون كتاب حقه وحكتاب توقع استعماله ثم كدبنا الراحة آذة مساجد كآذة فلم يفرق أنك لجين بين اثنين لو وضع فردida dhexdooda aan kala geynin oo fasallatu kada markuu masaajidka tago ma kutiba wixii loo qadaray oo loo qoray lahu isaga thumma kadibna wa salada sunnawi thumma kadibna ila kharaja markuu soo baxo imaamku markuu soo baxo oo khudbada akhriyo ansata dhageysto oo dhag raariciya inta ruuxi sameeya غفر ولا dhaafi lahu isaga ma baynahu wa bayna al-jum'ati al-ukhra inta u dhaxaysa isaga jumcada marka uu joogo iyo jumcadii hore intii dambiga u dhaxaysay bal loo dhaafay macna xadiiska waan soo marnay fi غير marra hal mar wax ka badan baan soo marnay baxal shaahidka halkan waxa weey ajirka in jumcadii hore iyo jumcadan hadda aad joogto inta u dhaxaysa dambigii aha la dhaaf ajirkaasi shuruudu ku xidhan yahay baa waxa kamida inaadan laba ruux oo wada fadhida kala dhaxgelin marka haddii taa aad samayso daahirka xadiisku wuxuu faa'iideynayaa inaadan helaynin fadiilada iyo ajriga xadiisku sheegay saasuu faa'iideynaya ayib waxay marka u badan yihiin culimmadu kala dhexgelidda laba ruux oo wada fadhido isku xigtaa kala dhexgalay inay karaahiye tahay laakiin culimmada qaarkood waxay jasmiyeen inay xaaraam tahay sida ibn al-mundir oo kaleeto imaam an-nawawi oo kale waxay leeyihiin waa xaaraam baab la yuqimu ar-rajulu ninkuma istaajinayo akhaahu walaalkii istaajin maayo yawma al-jum'ati maalinta jumcada wayaqcudu fariisan maayo fi makaanihi meeshiisii ruux intaad iiga kactiraado meeshu fadhiyo ka kacsato u daba mari maysido meeshiisii fadhiisan mayso taas macnaha ayib wuxuu ku qeyday hadda maalinta jumcada taqyiidka maalinta jumcada lagu qeydo waxay ku soo aroortay cinda al-imaam muslim la yuqimanna ahadukum akhaahu yawma al-jum'ati thumma yukhalifu ila maq'adihi fihi walakin yaqulu tafassahu taas macnaha yuusan meesha ka kacsanin oo meeshii yuusan u daba marin oo fadhiisanin hase yiraahdo yani waasiya halaysu waasiyo oo halaysla ekaysiyo saaha ku dhaho oo boos sidaa ku helo laakiin waxa way iiga kac oo ana fadhiisanay taas la diiday la yuqimu ma istaji ar-rajulu wa khabar bi macna an-nahy la yuqimu ma istaji ar-rajulu ninku akhaahu walalki ma istaji yawm al-jum'ati maalinta jumcada ويقعد مفرست في مكانه ماشي في أككعيي قال إمام كحولي حدثنا محمد ابن سلام البيكندوي قال حولي أخبرنا مخلد ابن يزيد قال حولي أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال حولي سمعت وحن مغلي نافعا بان مغلو يقول له سمعت وحن مغلي ابن عمر رضي الله عنهما ويقول له نهى النبي صلى الله عليه وسلم النبي بوحو الربي أن يقيم إنه استاجي الرجل ننكو أخاه ولالكي ننكاسي مفهوم كاللغة فهمياي يعني وحوي مقصود ما oo macnaheedu ma aha nin hadii la yiraahdo haweentu waa u banaantay ma ee meeshii saan horeba u soo marnay
siiqooyinka ragga ku soo arooriya axkaamta loo sugo shareecada haweenkuna waa la wadaagaan haddayna la wadaagaynin waa in daliil la helo ka bixinaya iyaga macna saas weeyaan laa yuqiimu naha wuu reebay annabiyu sal lla lay sl nebigu wuxuu reebay an yuqiima inuu istaajiyo alrajulu ninku inuu istaajiyo ruuxa laga wadaayo akhaahu walaalkii inuu ka istaajiyo min maqcadihi meeshiisii uu fadhiyey wayajlisa wa an yajlisa inuu fadhiisto fiihi dhexdiisa qultu waxaan ku idhi buu yihi haddaanahay ibnu jurayd linaaficin naafic waxaan ku idhi aljumucata ma jumcada fadhigaas in layska kiciyo la diidaya ma jumcada baan idhi qaala wuxuu ihi aljumucata wagayraha acni aljumucata wagayraha jumcada iyo keyrkeedba waa loo jeedaayo macnaha waxa weyaan jumcada khaas kuma ah wey macna xadiiska daahirkiisa marka saasuu faa'iideyno jumcadu waa soo gelaysaa fadhiga salaada la sugayo laakiin fadhiyo kaleetee caadigaa xitaa intaad war meesha iga kac tidhaahdo inaad fadhiisato maya saas macna inaad ka kicisood adugu fadhiisato maya laakiin ha laysu waasiciyo oo ha laysku durdurko taasaa la ogol yahay macnaha baabuladaani aadaankiibuu baabu yahay yowma aljumucati maalinta jumcada la aadaamo aadaanka maalinta jumco ayuu baabu yahay goormaa la jideeyaa wey macnaha goormuu dhacaya qaala imaamku wuxuu ihi xadaana aadam ibn abi yaas wey qaala wuxuu ihi xadaana bnu abi di'bin muxamed waay moxamed bn cabdiraxmaan can izuhriyi moxamed ibn muslim can isaa'ib ibni yaziid alkindi qaala wuxuu ihi kaana nidaau aadaanku wuxuu ahaa yowma aljumucati maalinta jumcada awaluhu markiisa ugu horaysa wuxuu ahaa idaa jalasa haddii uu fadhiisto alimaamu imaamku markuu fadhiisto cala almimbari mimbarka markuu ku fadhiisto macnaheedu waxa weeye aadaanku maalinta jumcada wuxuu ahaa bilowgiisu wuxuu ahaa imaamku markuu mimbarka ku fadhiisto calaa cahdi nabiy sal lla lay slam nebiga wakhtigiisa wa abi bakrin iyo abubakr wakhtigiisa wa cumara iyo wa cumar wakhtigiisii radia allahu canhuma falamaa kaana markuu ahaaday cuhmaanu cuhmaan radia allahu canhu markuu muslimiinta khaliif u noqdo labadaa uga dambeeyey oo wakasura ay bateen annaasu dadkiina bateen ayaa zaada wuxuu kordhiyey cuhmaan annidaa aadaanka ahaalita ee saddexaad cala azawraa daarta zawre la yidhahdo dusheeda oo suuqa ku taalla way macna azawraa tafsiiru imaamku halkaa ma idinku qoraya qaala abu cabdillaah ma idin daba dhigaya nuska qaar baa qoray qaala abu cabdillaah azawraau mawdicun bisuuqi bilmadiina bukhaari baa zawre fasiray waa meel suuqa madiina ku taalla magaceeda zawre la yidhaahda halkaasaa marka yuu aadaanka ku jideeyey oo halkaasaa lagu aadaami jiray aadaanka saddexaad ee cuhmaan jideeyey daahirka riwaayadan marka waxaa ka muuqata saddex aadaan inay jireen saddex aadaan oo laba aadaanoo hore iyo aadaan saddexaad oo cusmaan soo kordhiyey laba aadaan garanay hal aadaan waktigii nebigu jiray sal lla alay slam aadaanna cusmaan baa kordhiyey ka saddexaad muxuu yahay ka saddexaad waa aqimaadda wey macna waa aqimaadda aadaan waa la yidhaahdaa axaadiista way ku soo aroortay iyadoo aqimaadda aadaan loo isticmaalayo macna sidaas weyaan marka saddexda aadaan asagu waktigii nebiga sal lla alay wasalam iyo waktigii abubakar iyo waktigii cumar iyo weliba cusmaan khilaafadiisa inteedii hore hal aadaanun baa jumcada la aadaami jiray halkaa aadaanna waxaa la aadaami jiray imaamku markuu mimbarka fuulo aadaankan ka horeeya cusmaan baa jideeyey sababtu u jideeyeyna xadiisku uu tilmaamayoo dadkii baa batay magaalada madiina way ballaadhatay oo marka dadkii baa batay aadaanka masaajidka ka dhacayaan marka la maqlaynin sababka macnaha loo jideeyey aadaanka masaajidka ayaan la maqlaynin oo dee mikrofoonnana ma jirin suuqa marka lala tegi jirayoo daar zawre la yidhaahdo suuqa dhexdiisa ku taalay halkaasaa lala fuuli jiray aadaanka hore ee cusmaan uu jideeyey radia allahu canhu ayib marka maalinta jumcada aadaankeeda ayuu meeshaa kaga hadlayoo inoo baabeeyey waxaan garanay marka aadaankan hore inuu jideeyo cusmaan jideeyey cusmaan wuxuu u jideeyey axaadiista ku soo aroortay marka la fiiriyo saddex sababood sababka koowaad waxa weeye kasratu nnaasi dadkii oo batay sababka labaadna waxa weeye tabaacudu lmanaasili yacni guryihii la deganaa oo kala fogaaday ka saddexaadna waxa weeyaan intuusan soo bixin wax yar ka hor baa horta la aadaami jiray oo uusan masaajidka u soo bixin
waxyar baa laga hormari jiray aadaanka suuqa wuxuuna u aadaami jiray liyucallima annaasa aw liyuclima annaasa biana aljumucata qad xadarat aadaankaa suuqa laga aadaamayo waxaa loogu talageli jiray in dadka la ogeysiiyo jumcadii inay gashay saas macna markaa aadaanku dhammaadana intuu soo baxo buu imaan jiray masaajidka oo mimbarka fuuli jiray markuu mimbarka fuulo baa aadaankii nebiga sal ly slam waqtigiisii jiri jiray baa markaa la aadaami jiray macna saas marka wax badanba ma kala dambaynin mimbarka fuulitaankiisa aadaanka dambe iyo aadaanka hore wax badani uma dhexaynin macna sidaasuu marka cusmaan u jeedayay radi allahu canhu ayib intaa markaan garanno hadda oo maanta la joogo cusmaan aadaankiisii in la sii wado miyaa mise waa la iska dayn karaa cusmaan asbaabtii uu u jideeyey aadaanka haddii la helo waa sunno khaliifada muslimiinta mid ka mida uu jideeyey waa lagu dayan laakiin cilladii iyo sababkii jidayntiisa keentay waa in la helo haddii sababkii iyo cilladii ay meesha ka baxaan ila cillo macquulo ah oo la fahmi karo buu cusmaan u jideeyey aadaanka labaad oo cillada macquulada maxay tahay dadkii oo batay guryihiioo fogaaday iyo dadka in la ogeysiiyo oo aadaanka masaajidka ka dhacaya ayaan gaadhayno aysan maqlaynin macnaha haddii marka intaa la helo aadaankii cusmaan waa mashruuc cilladiisiibaa qaa'im ah haddii la waayo oo ama aadaanka masaajidka kulli la wada maqlaya ama guryuhu ma kala foga ama dadku saa uma wada badna ama hadda sida la gaadho oo kaleeto mikrofoonnaa la haystaayoo meel walba codku gaadhaya cilladii loo jideeyey cusmaan aadaankiisa uu jideeyey meesha way ka baxday mar hadday cilladii meesha ka baxdayna in la yidhaahdo waxaan ku sii dayanaynaa khaliifkii baan sii daba joognaa sax ma ah leanna shaygii cillo iyo sabab dartii loo jideeyo sababkiisii intuu qaa'im yahay buu jiraa sababkiisii hadduu meesha ka baxo isaguna waa inuu meesha ka baxo alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wa cadaman saas way macnaa sidaas daraaddeed baa ninkii laodhan jiray cali bni abi aalib kuufa markuu joogay cusmaan aadaankiisa labaad muusan qaadanina halkii aadaanay wakhtigii nebiga jiri jiray unbuu ku gaabsaday waa cali bni abi aalib cabdullaahi bni cumarna waxaa ka asaxay inuu yidhi aadaanka labaad waa bidco waa cabdullaahi bni cumar waxaa lagu xambaarayaa markii uusan haysanin asbaabtii uu cusmaan u jiday alimaamu shaafici baa isaguna wuxuu yidhi waxaa ila quman aadaankii wakhtigii nebiga jiray keliya in lagu gaabsado kitaabkiisa umka ah oo inala yaalla ayuu imaamku sidaa ku yidhi oo wuxuu yidhi imaamu shaafici wauxibu an yakuuna aladaanu yowma aljumucati xiina yadkhulu alimaamu almasjida yajlisu cala almimbar faإida facala أخذ المؤذن في الأذان فإذا فرغ قام فخطب لا يزيد عليه حديث كان المركع السائب بن يزيد بو إمام الشافعي سود للشري حديث مركع شيء كذب وحوري وكان عطاء ينكر أن يكون عثمان أحدثه ويقول أحدثه معاوية فأيهما كان الأمر هذا القول حوته إمام الشافعي فأيهما كان الأمر فالأولى فأيهما كان الأمر فالأمر الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أما هل يجد هذا عثمان باتشدي أما هل يجد هذا معاوية تشدي لبقربة حال كسيدي وها وقت النبي أو هل آذان بائلة في عنون على يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه وكتابي سأمك أوي معنا فحنو شيئنا dadka u haysta cusmaan aadaankiisii oo laga tago inay bidca tahay dadkaasaan u sheeganay in badanoo ka mid a waxay sheeganayaan inay haystaan madhabkii imaamu shaafici kitaabkiisa umkana saasuu ku caddeeyey almuhim warka soo gebagabeeyey haddii asbaabtii loo jideeyey aadaanka cusmaan ay qaa'im tahayna laa ba's hadday asbaabtii meesha ka baxdana in la yidhahdo imaamku aan weli kusii dayanaynaa meesha kuma jirto macnaha ayb waxaa kaloo iyadana meesha ku jirta aadaankii cusmaan markii asbaabtiisa la helo oo la adimayo in haddana masaajidka laga aadaamayo waa khalad sunnadii cusmaan baa la khilaafsan yahay cusmaan wuxuu jideeyey aadaanka in la geeyo suuqa ciddii aadaankii cusmaan ku dhaqmaysa waa in suuqa la geeyo oo suuqa dushiisa inta la fuulo halkaa laga aadaamo
laakiin masaajidka in loo soo raro xaggee laga keenay waa midda labaad weeye aadaanka cusmaan aadaanka dambe ee mimbarka imaamku markuu fuulo way isku dhowaayeen xaggee laga keenay hal saac in laga hormariyo ama nusu saacba uu ka horreeya ama ka badanba laga hormariyo 5 saac la adimo xaggee laga keenay iyaduna sal ma laha waxaasoo dhan waa ziyaadaad dadku ay keensadeen way macna sidaas weeyaan baabu lmu'adini alwaaxidi wuxuu baabu yahay almu'adini mu'adinkii alwaaxidi ee keligii ahaa yowma aljumucati maalinta jumcada aadaanka maalinta jumcada ah hal mu'adin inuu aadaamayo baabu yahay wuxuu ka wadaa inuu laba mu'adin ayna meesha imaaninoo ayna iska garab aadaamin ee hal mu'adin uu aadaamo kii aadaamayna uu aqimo saas macna قال إمام كحول حدثنا أبو نعيم الفضل بن الدكين قال وحول حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الذي زاد كردي التأذين آذانك الثالثة إيش الضحاب يوم الجمعة ما ننت الجمعة عثمان بن عفان بوها رضي الله عنه عثمان بن عفان أي كردي آذانك الصدحات صدحات كواحد من القماد مركز لو قدروا صدح كنا قناه معنا صاص معنا في ماله طيب حين قرتي بكردي آذان كصدحات كثر أي بتين للمدينة زي مدينة مركز بتين ولم يكن من أهين للنبي صلى الله عليه وسلم النبي وما أهين للنبي صلى الله عليه وسلم ما أهين مؤذن غير واحد أو مد أهين هل مؤذن وحن أهين النبي ما أهين صلوات ربي وسلامه عليه جمعة لا جودا جمعة ولا واحد لقاها الله الصلاة الصبح إن اللي مؤذن ولهان شر النبي صلى الله عليه وسلم ويسوقن طاهي تافي جمعة ولا واحد لقاها الله وكان وحها التأذين آذانكم يوم الجمعة ما ننت جمعة حين قرت يجلس أوفرست الإمام إمامك يعني وحكوض على المنبر كدوش اسمه